Gobalka Gado ma noqon kara xudunta wax soo saarka Soomaaliya. Gado waa gobolka afraad ee ugu wax soo saarka badan dalkeena Soomaaliya. Gobolkani ayaa waxa mara wabiga Juba oo dhererkiisu yahay 300 oo kiiloomitir, ballaciisuna uu yahay 300 oo mitir. Gobolkani ayaa xuduud la leh labada dawladood ee Kenya iyo Ethiopia. 10 sano ee ugu dambeysay ayaa waxa kordhayay wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeralayda gobolka Gado. sidoo kale waxa ayna koror ku yimid tirada beeraha. haatan 3 sano ee ugu dambeysay waxa koror ku yimid goobaha lagu iibiyo dalagyada beeraha kuwaasi oo mashquulkoodu suuqyada gobolka aad looga dareemayo. dhanka kale waxa jira fursado wanaagsan oo gobolka ka jira, waxaana kamid ah in maalgeliyaal caalami ah ay ka socdo dawladda Turkiga ay booqanayaan gobolka, waxaana soo jiitay wax soo saarka xoogan ee ka jira Gado iyo hamiga beeralayda gobolkaasi. ma ahan wax soo saarka gudaha oo kaliya, waxa kaloo jirta hiigsi fog kaasi oo ah in meesha laga saaro dalagga dibadda laga keenayo iyo sidii looga hortagi lahaa abaaraha soo noqnoqda gaajada, faqriga, dawrsiga shisheeyaha oo Soomaaliya idil ka jira. haddaba haddii gobolka Gado uu ku guuleysto abaalmarinta wax soo saarkiisa, waxa ay noqonaysaa gobolka Soomaaliya oo idil ku tanaada awoodda dhul beereedka gobolka, iyadoo aynu ognahay awoodda dhul beereedka gobolkani in uu ku filan yahay gabi ahaanba dalkeena. Cabdiraxmaan Shoode, Dalka TV, Muqdisho.